sanado badan ka hor waxaa nagu adkaatay ood garanaysaan in dhoobey la qabtaay inay 3 dagaaloo aad u adag lagu galay oo shabaabku ay u arkayeen inay ahayd saldhig dhaqaale istaraatiijiyadeed oo ay ku lahaayeen deegaankan oo ay ku xisaabtameen inay noqonayso meesha ugu dambaysa ee gacantooda ka baxaysa laakiin ilaahay fadligii bay ahayd taasi waxay xaqiiqowday markii ciidamadii yimid ay gacanta ku dhufteen oo ay ka saareen dagaal culus oo ay ku tala gashanaayeen haddii dhoble ay ka baxaan inay ku adkaanayso inta kale inay sii joogaan waxaan rajaynayaa iyadoo maanta ka fudud oo dareenku aan garan karayna siduu yahay inaan maanta diyaar u nahay innagoo dowladda innagoo u diyaarsan innagoo heli karayna wixii aan u baahan nahay ciidan iyo qalabkiisa ah inay maanta aada uga fududdahay sidii hore ee shalay aynu ku maray dhobley ee aynu kaga baxnay ee aan kaga saaray shabaab taariikh dheer bay lahayd waddadii la qaaday iyo dagaaladii lagu galay intuba waxaan rajaynayaa inay maanta saldhiggeedu noqon doono mid haddana haddii shalay aan waddada midigta u qaadnay inaan bidix u qaadnay haddii la yidhaah waayo ciidamo ku filani dhinaca kale way ka soo socon doonaan ama ha noqoto degmada badhaadha inta ka dhiman ama ha noqoto jubbada dhexe iyo jubbada hoose bilowgooda oo jilib iyo jamaam ah waxaan is leeyahay ciidan nagaga filani maanta waddadaa wuu saaran yahay laakiin aaggan dhobley iyo ciidanka xarunta jooga afmadow oo aan ugu talagalay inay halkaasi noqoto meesha laga sii ambaqaado waxaan rajaynayaa in howlgalkaas ilaahay nagu najixin doono ciidankana aan aada ugu mahad celinayo diyaarsanaantooda diyaargarowgooda si ay heeganka u yihiin sida ay doonayaan inay mar walba waajibaadka qaran ee saaran ay u gutaan waxaa xaqiiqo ah cadowga aan la dagaalamaynaay waa manaxayaal soomaali ma aha islaan ma aha jinsiyaday leeyihiin lama yaqaano waxay u dagaalamayaan lama yaqaano waxay u socdaan lama yaqaano laakiin waxaan rajaynayaa haddii la helo cid iska celisa inay yihiin dadka ugu nugul waxay aada uga adag yihiin shacabka oo aada u gumaadaan oo ay gubaan oo ay xasuuqaan oo markaa aadan garanaynin waxay dadkaasi garabsadeen iyo sabab ay u yeelayaan sidaas oo kale laakiin shacabku wuu sugayaa waayo cidda uu ka sugayo gargaar waayo cidda uu doonayaa inuu culayskaa ka qaado waxay la tahay waan garanaynaa waa ciidanka soomaaliyeed ma aha ciidan dibadda ka yimid ma aha amisom ma aha ciidamo kale dhul waxa xoogayaaloa ku dagaalami kara dareenkiisa gudan kara waa dadka u dhashay weeye haddaan sugno oo nidhaahno bal aan sugno qolaa meelaleyn ooga imanayse ma dhaqaaqi karna maxaan yeellaa waynu waayeynaa waxaan dadkeennu ku sii daynaynaa manaxayaal arxanlaawayaal danaystayaal alla cadaabayaal aad arkaysaan maanta dadkeenna waxay badeen iyo dalkeenna waxa ay badeen haddaan isku tashanno waxaa idiin muuqanaya shalay wixii ka dhacay baarsan guuni waad arkayseen waxay shalay dareemeen oo aan xusuusinaynaa haddii meydadkiinnu ay gubteen oo meydadkiinnu ay raq noqdeen ood cadaabanteen waxaad xusuusataan shacabkii soomaaliyeed ee soobe iyo meelaha kale aad ku gubayseen waxaad dhadhansiiseen aad shacabka u geysteen in idinkaana leedi dhadhansiinayo waana guul taariikhi ah waxaan is leeyahay shalay fulaynidu waa waxay baabuurtii xataa qaraxa ay ku wateen uga carareen baabuurkay ugu talagaleen waddada inay ku gooyeen waxaan u malaynayaa wiilashu
intay galeen iyo xataa gudihiisa fiiriyeen waxaa loogu talagalay caagaga saaraa gaariga dhinacyadiisoo dhan bule waxaan xabadu karin qaraxuna ka baxaynin bay ka dhigeen waxay ugu talagaleen inuu kor iyo hoos u qarxo oo buundada lagu gooyo qofku hadduuna fulay ahayn xaggee buu buundada u goynayaa waxaad garan karaysaan inaan la xajeclo iyo sii joogis iyo inay wax maamulaan iyo inay waxayaan midna inayna ku fakarayn markaad buundooyinka oo dhan iyo wixii waddanka macnihiisa ha o dhan aad burburiso maxay xukumayaan yay haynayaan xaggee u joogaan markay macnawiyaadka waddanka o dhan ay burburinayaan waxaan is leeyahay waxay ahayd shalay cadaab ku filan aadna aan uga mahad celinayo ciidankii afartii habeennimo iyo ilaa intaa dagaalka kula jiray qaraxyadoodii ay noqotay inay bannaan ku wada qarxiyaan khasaaraha iyaguna aada u yaraa iyagana maanta baktigoodii oo gubtay oo madoobaaday iyo baabuurtii qaraxa ay ka carareen maanta in lagala kulmo taa waxaan u farayaa shabaab ha qaateen fariintaasi dal la gubaayo dal la gubaayo buu leeyahay shacabka muqdisho maalin walba qaraxa lagu dexgubayahay waxaad ogaataan inuu jiro ciidan ka dambeeya walaalahooda oo idinkana idin gubi doono gacantoodana loo idinku cadaabi doono waan ka tacsiyeynaynaa intay ciidamada daba maraan inay dadka shacabka ah hoteelada ugu fuulaan iyo arrintii ay nairobi ka geysteen aad baan uga tacsiyeynaynaa waxay la mid tahay kuway soomaaliya ka geysanayaan oo kale waxay raadsadaan waa guri muraayadaah iyo dad shacaba dhexdiisa waxay iyagu isku tariyaani waa shacabka iyo meydka isku tariya waan uga tacsiyeynaynaa dowladda kenya waxa lagu maagaya lagu haystaana waxaa weeyaan soomaalidaad gargaarteen ciidankiina howlgal ku jira waxaan u malaynayaa intaas inay iyadana geesinimo iyo kasii qaadayaan calooleyn iyo cadowga la dagaalamayaan oo shacabkooda uu garan karo inuuna ahayn mid cid gaara u jeeda inuu yahay mid dadka shacabkaa iyo masaakiinta la dagaalamaya taa waxaan rajaynayaa iyagana in ay ka gudan doonaan aanan uga tacsiyeynayno waxaan rabaa soomaalidu waxaan marar badan ku celiyey ha isku tashato ha fiiriso dalkeeda iyo dadkeeda war hadduu shacabku baaboo oo maalin walba la xasuuqo oo la qarxiyo oo dhibaato loo geysto waxa la maamulayaa wa'yo waxaan odhan lahaa war siyaasiga soomaaligii dib ha u fakaro ha xisaabtamo waxa la maamulayo waxa la hor istaagayo cidda la rabo in loo taliyo hadday baaba'aan waayo cidda la maamulayahay haddaan isku tashanno innagu oo maanta aan ku talagalno inaan dagaalka aan go-aansanay aan wadanno waan hubaa innaga jubbaland joogno inaynu soomaalida kale o dhanna ka xorayn doono haddii la hayla waana rajaynayaa insha allahu inaan dagaalka aan bilowno ugu tegi doonno gobollada kalena oo shabaab aan ka wada xorayn doono haddii ilaaha yidhaah waan ku celinayaa mas-uuliyiinta soomaalidu dib ha u fakareen lagasi bay ka tegayaan iyuuna noqoni kursigaan ku fadhiisto waan ka tegaya ha noqdo dadkaan iyo wax la gaar shalay riyay ahayd markaan dheeblay ka gudbayno waxay ahayd riyo laga hadlayo lalahaa kollaba lalama dagaalami karayo maa laga joogo dagaalkii jaldaysa aan ku galay wuxuu ahaa abid dagaalaan gala kii igu adkaa mana la sawirayn shabaabna waxay ka fakarayeen siday noo qaybsan lahaayeen nin walba ninkuu qaadan lahaa xataa inayna addoonsadaan bay malaha ku fakarayeen guushii laga gaaray waxay noqotay inay afmadow ka sii qaxaan oo ka sii socdaan maanta markaan u dhaqaaqnaan xagar tagno haddii ilaaha yidhaah waxaan rajaynayaa inaanan dagaal adag ku geli doonin haddii ilaaha yidhaah buundo la gooyo iyo waddo la daba wareegana macno nooma samaynayso diyaar ma u nahay inaan saldhig u noqonno oo bilow u noqonno soomaaliya cadowgaas shisheeyaha ee axmaqa inaan ka horayno diyaar ma u nahay waxay la tahay aan isku tashanno shalay baan ka tabar liidanay shalay baan ka awood yarayn maanta ilaahayna garabkeennu iyo maceennu yahay waxay hadda ka shaqaynaya waa inay qabaa'ilka isku diraan waa inay askarta dhexdeeda wax ka dhex shaqeeyaan waa inay reeban yaa lagu yaqaanay wax qayb iyo xukun waagii dalka la gumaysan jiray yaa waxaa loola jeeda isticmaalku wuxuu yaqaanaa waxa la yidhaahdo divide and rule
dadka meel baa loo kala taagaa, qoys baa la isugu diraa, waa la iska hor keenaa si xukunka uu u ansaxo oo loo xukumo. maanta shabaab reer baa idin soo fiiriyey, daaqsintanay tahay, kan ha laga raro, meeshan ha la raro, intaasay tabartooda kusoo hadhayo buundooyin in la gooyo. waa fulay haddaad aragta nin buundaha la gooyo iyo jidkan aan iska xidho iyo labada qof ha la isku dira ka shaqaynaya, fulaynimaa u geynaysa. waa fulayo qarax biciinsanaya oo waxay tabar bidayaan ay tahay waxbaa la qarxinaya, waxaa la sameeyo. waxay la tahay middaas maanta waynu ka weynaanay, aan diyaar garayno, waan soconaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. waxaana rajaynayaa dhulka iyo wahooyooyinka iyo ardayda waxbarasho la-aanta iyo kuwa isbitaal la-aanta ee inay xoolaha ka qaadaan miyaana wax kale u tarini, maanta innagayna sugayaan, innagay maanta inoo yeerayaan. ma hadli karaan oo xor ma aha, ma dhaqan karaan xoolahooda oo waa la qaadanaya. si walba dhibaatadaa ugu filan, aan diyaar garayno. waxaan leeyahay soomaaliha isku tashato, waxay dadku ku caawin karaan oo wax lagu tari karaa markaad adigu wax qabsanayso. laakiin haddaad adigu meel fadhiisato oo adigu aad fadhido, de waxa weeyaan cidna inta afka raashin kugu gunta ku quudin mayso. aan ku talagalno arrintaas, aan ku talagalno. soomaali maanta geeska ugu sheegaya ka ugu dambeeya haddii la isku daro, waxaan u malaynaya inaynan cidna u baahanin. aan misana ciidamadeenni ama xoog dal ha noqdeen, ama kuwii isdaraawiishta ha noqdeen, ama kuwa kale booliska ha noqdeen, gudo iyo dibadba magaalooyinka gudahooda iyo banaanka waan iskaga filannahay. aan isku tashanno. waxaan idin rajeynayaa guul, waxaan u diyaarnahay howlgal, waxaan isnibaa waa inaan dhaqaaqno. aad baan idiin salaamaya. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.